السلام عليكم داوديال كسو dhawaada wararka Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne Farmaajo oo sheegay inaysan hor istaagi karin dawladnimada Soomaaliya kooxdana gaar leh dawladda federaalka Soomaaliya oo fasaxday siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ee ka dhacaysa magaalada Kismaayo iyo wafuud halkaas ku qulqulaya si ay uga qayb galaan xafladdaasi iyo waqtiga ay dhacayso xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo la shaaciyay siyaasi Faarax Macallin oo dawladda Kenya uga inay isku daydo in ay Soomaaliya ku qabsato sidii Sacuudigu ku qabsaday dalka Yemen wafdigii dawladda federaalku u dirtay Puntland oo dib ugu laabtay Muqdisho kana warbixiyay wixii ay kala soo kulmeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay kulan qaas ah kula qaateen magaalada Boosaaso dawladda Soomaaliya oo diiday inay ka qayb gasho shir dalalka Afrika uga socda magaalada Nairobi xiisada kala dhaxaysa Kenya awgeed madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kulan gaar ah magaalada Hargeysa kula qaatay safiirka midowga Yurub qaabilsan Soomaaliya kalana hadlay dib u bilaabida wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaaciyay inay dhexdhexaadinayaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu khilaafku ka dhaxeeyo qodobada ay ku kala ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garooba iyagoo dhameystiran isu soo noqdo haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna ugu soo laabo salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aan idinku sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbada ka jeediyay furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo caqabadaha ay la kulmayso dawladda federaalka ee kaga imaanaya dhinaca siyaasiyiinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbada uu ka jeediyay furitaanka kala fadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu isagu daahfuray waxa uu kaga hadlay khudbadiisa arrimo dhowra madaxweynaha ayaa sheegay in nidaamka federaalka uu yahay mid ay qaadatay Soomaaliya inta looga qaadayo afti guud balse ay jiraan dad u turjuntay si qaldan nidaamka federaalka wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in siyaasadda guud ee dalka iyo midnimadiisuba ay mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda federaalka oo u xil saaran in ay ilaaliso nidaamka federaalka iyo dawladnimada dalka wuxuu yiri madaxweynuhu nidaamka federaalku waa nidaam ummadda Soomaaliyeed ay dooratay waa hab maamul dawladeed ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo iyadu ay go'aansato in ay wax ka bedesho dawlad ama koox dan gaar leh wax kama bedeli karaan waxa nasiib darro ah in dad gaar ah ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka wuxuuna si cad u qeexay awoodaha dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dastuurka dalka dawlad goboleedyada ma siinayo madax banaani gaar ah waxaana xusuusinay in ilaalinta qarannimada iyo madax banaanida dalkaba ay u xil saaran tahay dawladda federaalka ayuu yiri madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay madaxweynuhu in ay diyaar u yihiin in ay siyaasad hufan kula dhaqanto dawladda federaalku caalamka iyo wadamada bariga Afrika oo kaalin mugle kaga jira Soomaaliya dib u soo kabashadeeda wuxuuna sheegay in aysan gorgortan ka gali doonin difaaca badda iyo bariga Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay dhowr jeer ka wada hadleen in sidii ay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka ku heli lahayd maqaam u qalma looga shaqeyn lahaa oo ay kaga qayb noqonayso nidaamka federaalka ee dalka ka jira haatan uu socdo qorshahaasi lagu raadinayo maqaamka magaalada Muqdisho Farmaajo ayaa sheegay in dawladdu dejisay qorshe horumarineed si loo gaaro siyaasad loo dhan yahay isagoo tilmaamay in ay diiradda saareen la dagaalanka musuqa toosinta cadaaladda habaynta maaliyadda qaybsiga kheyraadka dalka hirgelinta nidaamka federaalka iyo arrimo kale madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baarlamaanka labada aqal ka codsaday inay ansixiyaan hindisa sharciyeedyada hor yaala iyo kuwa kale ee soo socda si loo dardargeliyo meelmarintooda sharci ayaa dalka lagu dhisaa laguna dhaqaa ayuu yiri madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan dadaaladii dawladda federaalku ugu jirtay in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay wuxuuna sheegay in meel wanaagsan sidoo kale qorshahaasi uu haatan marayo una rajaynayo in lagu guuleysto bishan gudaheeda ayuu sheegay in madaxweynuhu ay soo gabangabayn
doonaan shuruudihii lagu xiray Soomaaliya si looga cafiyo deymaha lagu leeyahay wuxuu madaxweynuhu ku amaanay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay Muqdisho iyo qodobadii ka soo baxay oo uu sheegay in Soomaaliya ay dan u yihiin in ay qayb ka noqonayaan dadaalada hortabinta leh ee ay wada dawladda federaalku wuxuu saaxiibada Soomaaliya ku amaanay doorka ay ka qaateen shirkaasi iyo sida ay Soomaaliya u garab taagan yihiin hawlaha dib u heshiisiinta bulshooyinka Galmudug iyo dib u yagleelida maamul loo dhan yahay oo ay Galmudug yeelatay ayuu sheegay madaxweynuhu inay door wanaagsan ka qaadatay dawladdu haatanna ay socdaan dadaalada lagu dardargelinayo dhismaha dawlad goboleedka Galmudug madaxweyne Farmaajo wuxuu uga digay siyaasiyiinta mucaaradka inay hor istaagaan dawladnimada Soomaaliya wuxuu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay cid walba oo wax tabanaysa la hadasho cid kasta oo mudan in la raali galiyana ay raali galinayso kana shaqeynayso sidii sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed loo soo celin lahaa mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn ka codsaday dadka Soomaaliyeed in la iscafiyo oo gacmaha la isqabsado si loo gaaro qarannimo buuxda iyo walaalnimo dhab ah oo ka hana qaada Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa fasaxday mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dawladdu ay ka biyadiiday doorashadii uu ku soo baxay kana dhacaysa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland dawladda Soomaaliya oo horay uga biyadiiday in siyaasiyiin iyo xubno saameyn la ay tagaan magaalada Kismaayo ayaa haatan cadaadisyo dhowra oo soo wajahay iyo talooyin loo soo jeediyay garowsatay inay fasaxdo siyaasiyiinta iyo xubnaha ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe si ay u tagaan magaalada Kismaayo dawladda Soomaaliya waxaa la sheegay in go'aankan ay uga gol leedahay in ay iska dulqaado cadaadisyada kaga imaanaya qaar ka mid ah dalalka caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed qaarkood oo dawladda ku dhaliilay cunaqabatayntii iyo cadaadiskii ay ku soo rogtay maamulka Jubbaland si loo baajiyo xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe dhawaan ayay dawladdu sheegtay in siyaasiyiinta iyo xubnaha saameynta leh aanay tagi karin Kismaayo kana qaybgali karin xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo halka ka dhacaysa balse iminka ayaa la ogaaday in dawladdu ay dib uga laabatay go'aankaasi isla markaana ay garowsatay inay iska fasaxdo xubnaha ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe iyadoo dawladdu diyaarinayso qorshe kale oo looga baaraandagayo sidii Jubbaland looga qaban lahaa doorasho ku celisa qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa laga dareemayaa magaalada Kismaayo taasi oo loogu jiro u diyaar garowga xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo Kismaayo ka dhacaysa waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in magaalada Kismaayo ay ku sii qulqulayaan wafuud kala duwan magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa inay tagaan mas'uuliyiin ay kamid yihiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo ka qaybgalaya caleemasaarka Axmed Madoobe ammaanka magaalada Kismaayo ayaa si weyn loo adkeeyay maadaama mas'uuliyiin ay halka u tagayaan sidii ay kaga qaybgali lahaayeen caleemasaarka Axmed Madoobe mas'uuliyiin ku sugan magaalada Kismaayo ayaa Garaad TV u xaqiijiyay in caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe lagu wado inay ka dhacdo magaalada Kismaayo 11 bishan Oktoobar oo ku beegan Jimcada soo socota wufuudda ugu badan ayaa tagi doona saacadaha soo socda Kismaayo si ay uga qayb galaan xafladaasi waxaana dawladdu ay dib uga laabatay qorshihii ay doonaysay inay ku hor istaagto in Kismaayo lagu qabto xafladda lagu caleemasaarayo Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay la qorsheeyay in la qabto 26 bisha aynu soo dhaafnay ee September balse cunaqabatayntii ay dawladda federaalku ku soo rogtay maamulka Jubbaland awgeed u baaqatay iminka ayuu maamulka Axmed Madoobe isku diyaarinayaa soo dhaweynta wafuudda heerka sare ee ku soo wajahan Kismaayo kana qaybgalaya xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe maamulka Jubbaland ayaa markaan sheegay in ay rajeynayaan in ay si nabad ah ku qabsanto xafladda lagu caleemasaarayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay baarlamaanka Jubbaland sheegeen in markii saddexaad ay u doorteen madaxweynaha Jubbaland inkastoo dawladdu ka hortimi doorashadii uu Axmed Madoobe ku soo baxay beesha caalamkuna ay sidoo kale ka biyadiiday natiijada doorashadaasi Kismaayo waxaa sidoo kale ku sugan laba madaxweyne oo kale oo ka soo horjeeda Axmed Madoobe kuwa oo iyaguna sheeganaya hoggaanka maamulka Jubbaland waxaana la qorsheynayaa in ay qabsadaan iyaguna xaflado ay isku caleemasaarayaan Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa isku diyaarinaya inay qabsadaan xaflad la mid ah tan uu Axmed Madoobe isku caleemasaaraya ka dhacaysa magaalada Kismaayo siyaasi Faarax Macalin ayaa dawladda Kenya uga digay inay isku daydo in ay Soomaaliya ku qabsato qorshe la mid ah kii Sacuudigu ku qabsaday dalka Yemen iyadoo dhawaan dawladda Soomaaliya ay warqad ashtaka ka gudbisay dawladda Kenya warqadaasi oo loo gudbiyay
hay-adda duulista rayadka ee qaramada midoobay ee ECAWA oo laga dalbaday inay tallaabo ka qaado dowladda Kenya oo ku xadgudubtay duulimaadyada Soomaaliya kadib markii diyaarad ay ka soo duushay Nairobi kana degtay Kismaayo iyadoo jabisay diyaaradaasi amarkii dowladda Soomaaliya ayaa Kenya waxa ay ku eedeysay in ay gacan dhaaf ku samaysay arrimaha gudaha dalka Soomaaliya kadib markii ay dalkeeda ka soo fasaxday diyaarad ku socotay shati macmal ah taasi oo jabisay amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ahaa in diyaaradaha tagaya Kismaayo ay soo maraan Muqdisho. Siyaasi Faarax Macalin oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu uga digay dowladda Kenya in ay farageliso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wuxuu yiri Soomaaliya waxay cabasho kadana Kenya oo ku xadgudubtay hawadeeda u gudbisay qaramada midoobay. Kenya waa inay ka fogaataa khilaaf. Sacuudigu wuxuu moodayay in uu Yemen ku qabsan karo 2 toddobaad balse haatan 4 sano kadib wax dhamaad ah looma jeedo wuuna guuldaraystay Sacuudiga ayuu yiri siyaasi Faarax Macalin. Wuxuu sheegay in Kenya ay isku dayayso in qaab la mid ah kii Sacuudigu uu isku dayay inuu ku qabsado Yemen ay haatan la doonayaan Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in taasi ay dhibaato ku tahay dowladda Kenya loogana baahan yahay inay ka fakarto qaabka ay u wajahayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. siyaasigan ayaa ku eedeeyay dowladda Kenya inay mar walba gacan dhaafto dowladda federaalka xiriirna la samayso qaar kamid ah maamulada ka jira gudaha Soomaaliya sida maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo oo aan xiriir wanaagsan la lahayn dowladda dhexe. wafdigii ka socday dowladda federaalka ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari u tagay sidii ay madaxweynaha Puntland ugala soo hadli lahaayeen xalinta khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxayna ka warbixiyeen safarkii ay ku tageen deegaanada Puntland iyo waxa ay kala soo kulmeen. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in ay ka wada hadleen Puntland khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya isla markaana ay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. qodobada qaar ayuu sheegay in la isku afgartay isla markaana rajo laga qabo in khilaafka dowladda iyo maamulka Puntland la soo afjaro. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad in madaxweynaha Puntland uu mowqif adag ka istaagay inuu ka baaqsado xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo ku adkaystay inuu ka qayb galayo. dowladda federaalka ayaa doonaysay in madaxweyne Dani ay ku qanciso inuu ka baaqdo magaalada Kismaayo uusan ka qayb galin caleemasaarka Axmed Madoobe balse madaxweyne Dani ayaa ku adkaystay inuu xafladdaasi ka qayb galo. waxaana iminka muuqata in madaxweynaha Puntland uu si rasmi ah kaga dagi doono magaalada Kismaayo kana qayb gali doono caleemasaarka Axmed Madoobe. Grab TV ayaa horay u baahiyay safarka ay ku tageen magaalada Boosaaso wasiirada ka tirsan dowladda federaalka halkaasi oo ay kula kulmeen madaxweynaha Puntland. waxaana sidoo kale xusid mudan in aan horay idinkugu soo gudbinay in madaxweyne Dani uu ka biyadiiday dalabka dowladda ah inuu ka baaqsado magaalada Kismaayo iyadoo arrinkaasi haatan uu si rasmi ah u xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Soomaaliya ayaa diiday inay ka qayb gasho shir dalalka Afrika uga socda magaalada Nairobi iyadoo ay xiisad ba'ani u dhaxayso dalalka Soomaaliya iyo Kenya. waxa magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya ka socda shir ay leeyihiin inta badan wadamada gobolka oo looga hadlayo arrimo dhowra. shirkan waxa martigelisay dowladda Kenya inta badan wadamada gobolka ayaa xaadir ku ah shirkan iyadoo diiradda lagu saarayo xaaladda guud ee gobolka ka hortagga qatarta kooxaha argagixisadu ay ku hayaan qaaradda Afrika qaasatan geeska Afrika. xubnaha ka qayb galaya shirkan waxay sheegeen in loo baahan yahay in si wada jir ah loola dagaalamo kooxaha canaasiirta hubaysan ay ku tilmaameen. dowladda federaalka Soomaaliya oo kamid ah dowladaha shirkaasi lagu casuumay ayaa diiday inay shirka ka qayb gasho waxaana loo sababeynaya khilaafka ba'an ee dhinaca xuduud badeedka ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. dowladda Soomaaliya waxay horay Nairobi uga soo wareejisay shirarkii looga hadli jiray arrimaha Soomaaliya ee kolkii hore ay macaashka farabadan ku qabtay dowladda Kenya kuwaasi oo haatan loo raray magaalooyinka Kampala iyo Addis Ababa ee dalalka Uganda iyo Ethiopia oo haatan lagu qabto shirarkii horay loogu qaban jiray Nairobi ee looga hadli jiray arrimaha Soomaaliya. shirka ay Soomaaliya xaadiri weyday ee ka socda Nairobi ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo la xiriira xaaladda guud ee gobolka iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argagixisada. khilaafka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa iminka u muuqda mid saameyntiisa ay wali muuqato oo labada dal xiriirkooda si weyn u dhaawacay waxaana wali dhaqan galin heshiis ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta
kaasi oo ku saabsanaa in dib loogu soo celiyo xiriirka labada dal sidii uu ahaa 2017 markii la doortay madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ambassador Nicholas Berlanga iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan booqasho ku joogay Somaliland. kulanka waxa lagaga hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya Somaliland iyo midowga Yurub iyo sidii loo dardargelin lahaa. sidoo kale waxa kulanka looga hadlay mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub iyo Somaliland ay iska kaashadaan hirgelintooda iyo u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo safiirku sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin wixii kaalmo ah ee ay kaga qayb qaadanayaan qabsoomida doorashooyinka Somaliland. madaxweynaha Somaliland waxa kulanka ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaana madaxweynaha Somaliland uu ku bogaadiyay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya xiriirka uu la leeyahay Somaliland iyo mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub uu ka hirgelinayo deegaanada Somaliland. safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ambassador Nicholas Berlanga oo booqasho maalmahan ku joogay deegaanada Somaliland ayaa horay waxa uu u booqday magaalada Berbera halkaasi oo uu maayirka Berbera ugu wareejiyay lacag ka badan 7 milyan oo midowga Yurub uu ugu talagalay in lagu hormariyo jidadka magaalada Berbera. lacagtaasi oo horay ay u saxiixday dawladda federaalka ee Soomaaliya balse ay diiday Somaliland in la siiyo ugu dambeyn ay aqbashay Somaliland inay la wareegto lacagta ay saxiixeeda lahayd dawladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay horumarinta jidadka magaalada Berbera. Somaliland iyo midowga Yurub ayaa haatan iska kaashanaya sidoo kale dib u soo celinta xiriirkii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo Somaliland iyo dib u bilaabidda wada hadaladii dawladda dhexe iyo Somaliland. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlayay furitaanka kala fadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda dawladda ugu baaqay inay xaliyaan khilaafka kala dhaxeeya dawlad goboleedyada. waxa uu goobta ka sheegay inay waajib tahay in khilaafkaasi xal laga gaaro kaasi oo si gaar ah ugu dhaxeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda federaalka. sidoo kale isagoo si hadlayay ayuu xukuumadda Soomaaliya ka dalbaday inay dhisto golaha adeega garsoorka dalka kaasi oo xilligan iyo mar walba muhiim u ah dalka Soomaaliya isla markaana sidii loo dhisi lahaa ay dadaal ku bixiso dawladda dhexe. khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayuu sheegay gudoomiyaha aqalka sare inuu cuuryaamiyay horu socodka Soomaaliya waxna u dhimi karo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod marka la gaaro dabayaaqada 2020 ilaa 2021. wuxuu sheegay in aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu door ku yeesho sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in wafuud ay u diri doonaan deegaanada dawlad goboleedyadaasi si ay uga soo tala bixiyaan qaabka ugu sahlan ee xal loogu heli karo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Puntland iyo Jubbaland. horay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo matala dawlad goboleedyada ayaa ugu istaagay xal u helista khilaaf horay u soo kala dhaxgalay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaana iminka mar kale uu gudoomiyaha aqalka sare ballan qaaday inay xalin doonaan khilaafka haatan u dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya. khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira qaarkood ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay waxaana xoogiisa u yimid kadib doorashadii dawladda federaalku ay diiday ee ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu soo doortay Axmed Madoobe. xubin kamid ah guddiga ay dawladda federaalku u magacowday farsamada iyo dhismaha Galmudug ayaa lagu soo waramayaa in ay iscasishay. wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay iscasishay haweeney kamid ahayd guddiga farsamada dhismaha Galmudug. xubnaha guddiga oo ka koobnaa 13 xubnood ayaa waxa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda Soomaaliya kuwaasi oo loogu talagalay inay bilaabaan dhismaha Galmudug loo dhan yahay. xubinta iscasishay oo haweeney ah ayaa lagu sheegay magaceeda Xaliimo Cabdi Cali waxaana la sheegay in ay ku dhawaaqday inay iska casishay xubinnimadeeda guddiga ay kamid ahayd ha yeeshee aan weli si dhaba loo ogeyn sababta ay isku casishay. talaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli hoggaanka ahlu sunna ay markaasi saluugsan yihiin qaabka ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya u soo magacowday guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug oo ay wasaaraddu ku dhawaaqday waxaana
guddigan soo dhaweeyay dhismihiisa madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guddigan sheegtay in looga baahan yahay inay gudagalaan dhismaha galmudug loo dhan yahay oo dowladdu ay u ololeynaysay tan iyo markii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre booqashadiisii ugu horeysay ku tagay deegaanada galmudug kuna dhawaaqay in dowladda federaalku ay dhisayso galmudug loo dhan yahay oo dadka deegaanku ay ku wada qanacsan yihiin. guddigan ayaa waxa ay la kulmayaan haatan caqabado xoogan iyadoo ay muuqato in sidoo kale xubnaha mucaaradka ee rajada kale ka qaybgalka doorashada galmudug aysan la dhacsanayn guddiga ay dowladdu ku dhawaaqday ee farsamada iyo dhismaha galmudug. waxaana iscasilaada xubintan kamida guddiga ay dowladdu magacowday wali war ka soo saarin dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay soo celin doonaan nidaamkii boosto dirista ee dalka Soomaaliya ayaa laga xusay maalinta boostada adduunka iyada oo sanadkan ay ku soo aadayso xilli boostada Soomaaliya ay u buuxsantay 60 sano markii ay xubin ka noqotay ururka boostada adduunka. isagoo ka hadlayay xuska munaasabadan ayuu wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan wuxuu sheegay inay heer gabagaba ah marayaan dadaalada dib loogu bilaabayo nidaamka dirista boostada dalka taasi oo uu sheegay in la dhameystiri doono dibna loo hawlgelin doono. injineer Canshuur ayaa intaa ku daray in wasaaraddu ay ka shaqaynayso sidii loo soo celin lahaa adeegyadii iyo sharaftii ay lahayd boostada dalka isla markaana ay u noqon lahayd goob loogu soo hagaago adeegyada boostada casriga ah iyo kuwa dowladda ay muwaadiniinteeda uga baahan yihiin. wasiirka ayaa qiray in kastoo ay sii kordhayso adeegsiga tiknoolajiyadda adduunka oo dhan haddana in weli aan laga maarmin kaalinta boostada maadaama ay yihiin adeegyo dhammaystiraya howlaha ay boostadu u hayso dadweynaha. maalinta boostada adduunka ayaa looga dhawaaqay shirweynihii midowga boostada adduunka ee lagu qabtay magaalada Tokyo ee dalka Japan sanadkii 1969. ujeedada laga leeyahay xuska maalintan ayaa ah sidii loo kordhin lahaa wacyigelinta dadweynaha ee kaalinta ay boostadu ku leedahay horumarka dhaqanka iyo dhaqaalaha dal kasta. waxaa xusid mudan in Soomaaliya ay ku biirtay midowga boostada adduunka 1 Abriil 1959 taasi oo ah waqti ka horeeyay qaadashadii gobonimada. hase yeeshee nasiib darro adeegaasi oo ay ku shaqayn jireen in ku dhow 3,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa la burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliyeed ka daawanayseen GRA TV.